صام 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 بشهر رمضان صام 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 بشهر رمضان صام 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 سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الأنعام آخر كذا وحين دقيسنا الوصايا العشرة في هذه السورة. طبعا كالدردارا سورة إعانك كتها كترة آيات بقول يكوب يكونتون إلى صدح يكونتون صدح لا أيضا. الوصايا العشرة طبعا كالدردارا يوقفك هرقليا وحي ضمانات قاضيسا إيمانكي وناكسنا حاليتا إنو سو شرحينينو كقوليستو. dardaaranadaas iyaga ah waa xuquuqdii ina saaraydo aynu hirgelinayno oo ilaahay uu nafaraya subxaanahu wa tacaala. xuquuqdaas saddex ka mida waxaa le ilaahay, laba ka mida waxaa le aqaaribta, saddex ka midana waxaa le ummadda kale, midna waa la wada leeyahay khaaliq iyo makhluuqa. saddexda uu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وإن إلهي كلي العابد ولا قفق هذا وحلا إلى هذا قال لماذا نوعية ذاك الدول يدو إنه أكسون هاي معصية مدة بقى قال لماذا وحيل هاي وجوه الرئيسين يديد مديس وحاو كجد ويا الذنوب تكرار الله الرماد. hadduu qofku gaalnimo ku dhaco ilaahay baynu ka magan galnaa wax laga aqbalayaa ma jiro. wax kasta oo ixsaan iyo samafal uu sameeyo gundhig baanu lahayna wuu dumayaa. midda labaad uu leeyahay waxa weeye qofku hadduu adduunka kaga tago iimaan la-aan wax rajo ah oo janno looga qabaa ma jiro. wax rajo oo janno iyo dembi dhaaf looga qabaa ma jiree naar buu ku waarayaa. labadaa khatarood oo gaalnimadu ay macsiyada kaga duwan tahay daraaddeed ayaa ilaahay u soo horumariyaa dadka uga diga. waa balaayada u weyn, cudurka ugu khatar badan cudurrada ku dhaca weeye qofka bani aadamka ah. xaqa labaad uu ilaahay leeyahay waxa weeyaan: waa bicahdi illaahi awfu. ilaahay ballankiisa ha la fuliyo. ilaahay ballan baynu kula jirnaa, ama aan ogaano ama yaynaan ogaan. ilaahay waxaanu ballan qaadnay inaanu rusushaada raacno, inaanu sharcigaaga u hoggaansanno. alastu birabbikum buu ina yidhi. qur-aankaynu ku akhriyayna rabbigiinnii ma aha. waxalla waxa bani aadamka ifkan u soo baxay oo dhan wuxuu yihi balaa rabbiga iyaga waata. marka ballantaasay ka baxeen dadka ilaahay diiday subxaana wa tacaala ee ka gaaloobay. rusushaa ballan inaga qaaday, kitaabka qur-aanka baa ballan inaga qaaday. wa bicahdi illaahi awfu. arrinka saddexaad ee ilaahay uu leeyahy waxa weeyaan: wa anna haadaa siraatii mustaqiima fattabicuuh. waa sharcigiisa in la raaco. kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam diinta asalka u ah in lagu dhaqmo oo qofku uu noqdo waxa ilaahay uga diin dhiganayo ugu dhowaanayo. waa jidka toosana ilaahay gaadhsiinaya subxaana wa tacaala. labada arrimood ee xigtada ama qaraabadu ay leeyihiin weliba kuwa kugu dhowdha waxa weeyaan: sidaa aayadda ilaahay markuu towxiidkiisa sheegay waxa uu ku xigsiiye waa bilwaalidayni ixsaana. labadii idin dhalay u samafala. walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqi naxnu narsuqukum wa iyaahum. caruurtiinana ha diilina idinkoo faqri ka cararaya. yaa ilaahay inooga naxariis badan subxaana wa tacaala. ilaahay cid inooga naxariis badani ma jirto. kii ku dhalayna hagaaji buu ku leeyahy, kii aad dhashayna hagaaji buu ku leeyahy. waba dadka labada kugu dhowe adigu aada isleedahay waabaad u dadaalaysaaba. kii wax dhalayna waxaa la carruurta hagaaji, carruurtiina waxaa la waalidka hagaajiya. marka waa arrin diina oo ilaahay lagu adeecayo subxaana wa tacaala. dadka in xaqooda la siiyo. xaqii xigtanimo inaad siiso oo diintii aad barto oo tarbiyadii aad u hagaajiso oo korintoodii aad hagaajiso oo dayicii aad ka ilaaliso
diin iyo dunyaba aad u hagaajiso dadka ku dhalay iyo dadka dhashay waa waajib ina saaran wax laga sugayaana ma jiro qofkii hadduu labadaa dayacay kuwii isagaba lagu halaynaya hadduu soo daayey yaa kale lagu halaynaya taasina waa baab ballaadhan oo dee qofku isagaa wax ku helaya haddii aad waalidkaagii u samafasho siday yeeli jireen saxaabadu siday yeeli jireen salafuna saalix adiga ayaa ubadkaaga kuu samafalaya kayd baad sii dhiganaysa kuwa dhashay haddii aad u samafali weydana iyaguna kuu samafali maayaan tilka bitilka baa la idhaahdaayo waa lagugu sallidaya halkaa 5 xaq baa inoo dhacay xaqii ilaahay xaqii waalidka xaqii ubadka qofku markaa waa kaalin buuxisa ma ogti ilaahay iyo aqaaribtiisi ilaahay wuu arrinkiisii wuu daryeelay qofku aqaaribtiisina wuu daryeelay waa dadka ay had iyo jeer nafaqadoodu waajibka ku tahay ubadkaaga iyo waalidkaaga waa dadkaanad sakada siin karayn waayo xaq kale ay kugu leeyihiin oo nafaqo la yidhaahdo biil la yidhaahdo masruuf la yidhaahdo waxaa markaa ku soo xiga xuquuqdii ummadda kale xuquuqdii ay lahayd iyadoo dadka muslimiinta ay u soo horeynayaan ayaa ku xiga awalulxuquuqna waxa weeye xaqulxayaa dadka horta balo inaad wax kale intaanad siinin inaad noloshooda u nabadgeliso ninku dilay harkuuma jiidaa layidhi haddaad qofkii kawba kaga siinaysa ma arsaaqada iyo cunaad siinaysa ma si kalaad ugu naxariisanaysa walaa taqtulu الnafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq waa dardaaranaday ka mid qofna ha ku dilina gardaro xaq mooyaane qofkaasi 4 buu noqonayaa bay leeyihin culimadu mid waa qofkii muslimka ahaa dilka maanta aynu xalaashanee la banaystay ee la isugu aaree la isugu faano kaasuu ilaahay boqorkaa diiday oo xaaraantinimeeyey subxaanahu wa tacaala waa qofkii muslimka ah ciqaabta lagala kumaya intee aayadood ayaa sheegto intee xadiid buu nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam nasiib darrada ilaa ibnu cabbaas uu tilmaamay inaanu towbadba lahayn markaan egay buuhi nusuusta ka warramaya dilka qofka mu'minka ah waxay iga muuqato inaanu qofkaasi towbadba lahayn xaqulxayaa dadku waxay xaq u leeyihiin inay noolaadaan oo kii aan ilaahay dil ku xukumin adigu ha ku xukumin ha ka soo dhowayni dilkii qabiilka iyo kii siyaasiga iyo kii xadgudubka midnaba saddexda qofka kalena waa gaalada waa mucaahadkii musta'mankii iyo dhiminkii dhimiy dhimigu waxa weeye ka inagu dhex nool daaniyaal baynu odhan jireen berigii hore ee cashuurta laga qaada ee muslimka u dhex noole sharcigeennu xukumayo dhimi baa la idhaa magan buu inoo yahay wax dhibuu inagu hayaana ma jiro sharcigeenna xukumayaba cashuurna waa ka qaaday ka labaadna mucaahad baa la ballan baa la kala qortay wax dhibi inaanu inaga imanin ka saddexaadna musta'man baa la idhaahdaa isaguna dagaal inaguma hayo saddexdaa qoloba waxay ka mid yihiin soo galayaan walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq waxaa hadhay kii xabaddu inaga dhex taagnay ee xarbiga loo yaqaanay xaqa labaaday dadkani leeyihiin waxa weeye xaqu tamalluk inuu qofku xaqii inuu yeesho xuquuqdii wixii ilaahay uu siiyey iyo maalkiisi in loo daayo waa daruuriyaadkii waxyaabihii sharcigu inoo ilaalinaya wey qofka xoolihiisa gaal iyo islaam mid kasta ahaado inaad u dayso ood u nabadgeliso aanad kaga qaadin dariiqo aan sharci ahayn wa awfuu bilkayli waalmiisaan bilqist waa galaanka iyo miisaanka dhammaystira baa ilahay waxay u taagan yihiin inaan wax khiyaamaa lagu samaynin wax kastoo wax lagu cabiro noocuu doonaya ha ahaado dadka qaar baa hankoodu yar yahay damaacinimadoodu badan tahay dadka markay wax u cabirayaan ama wax u miisaamayaan tiradii iyo tayada ka naaqusaan akhlaaq darra wey ummaddan baa lagu halaagay qowmu shucayb iyadana taana ilaahay waa xaaraantinimeeyey in dadka waxooda lagu xadgudbo dabaaci ha noqon in dadka waxooda doonayo oo xaqdarra ku qaadanaya weliba dadku way sii kala daran yihiine kuwa yaryare aabbahood dhinta ee agoonta la idhaahdo walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii yaxsan xataa yabluqa ashudda aayadday ku jirta dadkaa yaryare agoontaa wixii aabbahood uga tegay hays odhanin cidi kuma arkaysa afka ka buuxso hadda agoonta marka la leeyahay xoolihii ummadda aada madaxda uga haydna waa la mid ogow xoolaha ummadda aada u haysa dee agoontii baa leh qaybtoodii bay leeyihin kuwii waaweynaa baa leh agoontii baa leh rajadii baa leh is odhanin agoonta waa inta aabbahood uga dhintay inta ummaddana waxbay ku leeyihin maalulyatiimna qofka cunaa dee calooshiisa qiyaamaha wuxuu imanaya iyadoo naari ka soo kabacayso innamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran
naartii baa saa uga soo butaacaysa marka inaad wax ugu darto ood iska hagaajiso mooyaane kuwaa waxba hamoodin waxyaabaha ay ummaddu leedahay loo dhowraya waxaa ka mida cirdiga sharafta ayaa loo dhowraya dadka haddii sharafta lagaga xadgudbo oo cirdigoodii iyo sharaftoodii iyo dhegtooda la waxyeeleeyo waxba loolama harin walaa taqrabu lfawaaxisha maa dahara minha wamaa batana faaxishada iska daaya buuri midaa qarsataan iyo midaa muujisataan labadaba iska ilaaliya baa ilah uli alfaaxisha qur-aanku marar badan siyaabo kala duwan buu u tilmaamaa laakiin waxaa ugu caansan un sinada inta badan walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila waxaa kaloo qur-aanku uu ku tilmaamaa dadka maxaarimta ah sinadii baa sii kala xune dadkii aan gayaanka ahaynee ehelkiisa ahaayoo qofku wax ka dayo qaar sharcigu ka xaaraantinimeeyey oo uu guursado walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min الnisaaءi ilaa maa qad salaf inahu kaana faaxishatan wamaqtan wasaaa sabiila sinadii kale wuxuu sii dheeriyay wamaqtan waxaadha allah ka imanaysa qof sharciguba kaa xaaraantinimeeyood wax ka dayday faaxishada sida qisada ku sugan qowmu luud liwaadkana qur-aanku uu ku tilmaamaa iyo dabafuulnimada iyo ragga wax laga dayo waxaan daa iminka gaaladu ilbaxnimada ay u arkeen sigiska xagga dambe daag sigiska waxa ay idhaahdaan inkaare ku dhacda halkaasaa waa la marayaa maanta mid baa wuxuu ihi war adduunyadani lama ilbixinoo ilbaxnimo ma gaadhaysaan ilaa aad dadka dabada soo taabataan buui caalamku wuxuu marayaa buui meel maanta waa la ilbaxay waa la socday dabadaa lasoo taabtay buui macnaheedu waxa weye dee qurun baa lasoo taabtay halkaasaa la maraya ilbaxnimada nimanka ilbax haddaad ku dayato ilbaxnimadooda waxa weye dabataabadka iyo dabafuulnimo saddexdaasaa u caansan qur-aanku wuxuu faaxisho ku tilmaamo saddexdaana xoolihii iyo cirdigii iyo naftii in dadkii loo ilaaliyo oo aanad meel kaga dhicin oo aanad ku xadgudbin ummadda xaqoodii waad siisay markaa tan la wada leeyayna waxa weye alcadl waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba ilaahay baa cadli kaaga bahan markaad dhawaaqayso oo ehelkaa kaaga bahan oo ummaddaa kaaga bahan wax kala daayo haddaad hadlayso qowl kelmad markaad leedahay hadal cabirayso ilaahay wax ka sheegaysa ummadda wax ka sheegaysa cid waliba xaq bay leedahay cadaaladda ilaali dadka ilaahay isagaa yaqaana kaa isxigtaanba ha ahaada buu ilaahay kaad isxigta ha u eexani haddaad wax siinaysi haddaad wax ka riixaysaba eexdii baa inagu badan intuu kuu yimaadaabuu ku odhanaya maxaynu tolkana maanta haddaad markhaatiba igu furayso dee tolba ma yihin haddaanad markhaatigaa beentaa maanta ii furaynin oonad intaa awrkaa ii dhaqaajinayn bal maxaynu tol ku nahay siduu kuu beerlaxawsanayaabuu naar kugu bartanka kuu dhigaya walow kaana daa qurba marka haddaad hadal cabirayso iyo haddaad doodayso iyo haddaad markhaati furayso iyo haddaad cid xukumaysaad qaraar gaadhayso waidaa qultum facdiluu ilaali hadalka aada sheegayso haddii la yidhi qowlka ku cadaalad sameeya waxaynu hore kasii fahamnay ficilkuna inuu cadaalad noqdo marka cadaaladdaana khaaliqa iyo makhluuqa mid walba waa inaynu siinaa si aynu u hagaagi karno oo iimaankeenu u toosi karo tobankaa dardaaran markaynu ku mitidnaynu hirgelinno fii alwasaaya fii aakhiri suurati alancaam markaasaa iimaankeennu uu noqonayaa iimaan taya leh oo kobco hagaagsan oo ilaahay nagu jeclaado subxaanaه wa tacaala wajazaakum اllahu khayra wataqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان